aan ku sugannahay waa xarunta librariga qaranka oo hadda loogu magac daray madaxweynaha xil ka sii degaya mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo. haddaba xaflad loo qabtay librarigan ayaa waxaa xadhigga kaga jaray madaxweynaha isagu goobtan loogu magac daray ee Axmed Silaanyo. xaruntan oo dhismaheedu socday ku dhawaad 4 sano ayaa waxaa hadda gabagaboobay qaybtii koowaad ee librariga sidaad arkaysaan. qaybtan waxaa yaala ku dhawaad 50,000 oo buug oo buugta akhriska ay kala duwan. waxaa sidoo kale la rajaynayaa in qaybtan loo sameeyo qayb digitalka ah. sidoo kale waxaa goobtan wax ku akhrisan kara ku dhawaad ilaa 200 oo arday. bismillaahir rahmaanir rahiim. magacaygu waa Sadiq Maxamed Maxamuud. waxaan ka mid ahay dhalinyarada rajaynaysa inay halkan wax ku akhristaan in badanna waan tabaynay. aad baan ugu faraxsanahay maanta xadhigga noolaga jaro librarigan. waxaan nahay ardayda imka jaamacadda dhameysay sanadkii dhaweyd. waxaan rajaynayaa inuu dad badan anfici doono lagana raysan doono qaadkii iyo wixii sheekooyinkii lagu mashquuli jiray berigii hore. khayr baan u rajaynayaa.